u aragnaa inay bulshada dabaal joogto iyo daneeyaasha doorashooyinka ay la dheelayaan oo marna ay maxaan ku leeyihiin optionkaas aanu taaganno diyaar baanu nahay marna ay leeyihiin optionkaygii baanu ku noqonnay kulmiye marka tiraba dhowr jeer buu mowqifkiisa soo bandhigay oo uu ka hadlay inuu asagu diyaar u yahay inay doorashooyinku xilligooda ku dhacaan markii ugu dambeysay waxa ahayd qoraalkii waxa weeyaan option one bay taagnaayeen markii hore kulankii tusaale ahaan oo kale ka dhacay kulankii ugu dambeeyay ee casood ka dhacay ayaa qoladii wadani marka waxay yiraahdeen anagu ikhtiyaarkii la isrugo u banaayahay option 2 waanu ka noqono option 1 baanu ku noqono maxaa ku Cabdirashiid oo kale ee uu xil saaray inuu kulanada axsaabta sii galana mowqifkiisi muu ahayn mowqif fadhiya marka taas waxaanu leenahay iyaga ayaa ka galgalanaya oo ka meereysanaya mar ay safar u baxaan iyo mar ay optionkii ay taagnaayeen bedelaanba oo mowqifka xisbiyada ay la qaateen axsaabta maxaan ku bedelaanba rahiim wasalaatu wasalaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam maanta oo ah maalin salaasa ah bisha November-na ay tahay 2025 waxaan jecelnahay inaan halkan kaga hadalno dhowr qodob anagoo jawaab celin ka dhigayna hadal runtii ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani Cabdirashiid oo dhawaan xisbiga kulmiye ku eedeeyay inuu mas'uul ka yahay dib u dhaca doorashooyinka waxaan jeclahay inaan ku bilaabo hadalkayga bulshaduna ay ogaato in bishii August gudoomiyaha 3 bilood laga joogo xisbiga ka iyo xisbiga kulmiye ay shir ku wada yeesheen hotelka Mansoor shirka ujeedooyinkiisa waxa kamid ahaa in maadaama raxan wasiir ah oo xukuumadda wadani ka tirsan ay galeen guddiga doorashooyinka campuskoodii in tala laga yeesho taasoo runtii qalad ahayd iyo dabcan in ballan laga qabsado madaxweynaha si arinta looga hadlo iyo arrimaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta shirkaasi qodobadaasi markii ay ka soo baxeen waxaanu kulan ugu tagnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo cabashada loo gudbiyay raaligelinna uu ka bixiyay in wasiiradiisu ay galaan commissionka waxa iyaduna jirtay in commissionku ay saddexda xisbi soo gudbiyeen inay kala doortaan saddex ikhtiyaar ama options oo marka ay ku hirgelayso diiwaangelinta dhaci doonta hadii alla yiraahdo ee doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka marka shirar badan baa ay yeesheen saddexda xisbi madaxweynaha shirarkiisuna way daba socdeen markasta tala loogu tagayay anu ma jecel inaan ku noqdo shirarka iyo runtii inta meelood ay ka qabsoomeen iyo inta numberkoodu ahaa taa waa la garanayaa xisaabtuna way ka hadashay laakiin arrinta muhiimka u socda waxa weeye sidaynu la soconno madaxweynuhu dhowr jeer uu ka hadlay waxaanu ballan qaaday in doorashooyinka soo socda xilligooda uu ku qabanayo sidoo kale wuxuu ballan qaaday in kharashkii doorashooyinkana uu hayo asaguna baadi doonayo waxaanu ka codsaday xisbiyada mucaaradka ah in ay la eegaan option 1 oo marka ay uu ku sheegay yani inuu yahay optionka kaliya ee diiwaangelinta lagu sameyn karo kharashkiisuna runtii jaban yahay markii taasi dhacday mar walba talooyinka xisbiyaduna way dhinac socdeen haddaba waxaan u sheegayaa bulshada reer Soomaaliland xisbiga kulmiye tiraba dhowr jeer buu mowqifkiisa soo bandhigay oo uu ka hadlay inuu asagu diyaar u yahay inay doorashooyinku xilligooda ku dhacaan markii ugu dambeysay waxa ahayd qoraalkii ama war-saxaafadeedkii dhawaan aanu bulshada la wadaagnay aanu sheegnay inaanu diyaar u nahay in ay doorashadu xilligeeda ku dhacdo markii ka horeeyna wuxuu ahaa mar daneeyaasha aan idhaahda xildhibaanada daneynaya doorashooyinka soo socda hay'adda CDG ay soo qaban qaabisay kulan ka dhacay hotelkan maxaan ku dhahay Baraar aniga oo xogay guud ee xisbiga aan ka sheegay bulshadana aan la wadaagay inaanu diyaar u nahay iyo daneeyaashaba in doorashadu xilligeeda ay ku dhacdo markii ka horeeyna wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga Maxamed Kaahin mar lagu wareysanayay madasha CDG ama Center for Democracy and Governance oo wasaguna halka bulshada u cadeeyay in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo hadda waxaan u sheegaynaa bulshada reer Soomaaliland iyo daneeyaasha doorashooyinka in xisbiga wadani aanay iyagu mowqifkaas marka laga tago madaxweynaha dhowr munaasabadood ka sheegay sidaan horeba u sheegay dhowrka munaasabadoodna aanay ku jirin khudbad sanadeedkiisii uu baarlamaanka ka horjeedinay in aanu ka sheegin doorashadii arrimaheeda soo adamaad garan waxaanu bulshada u sheegaynaa kulanadii tusaale ahaan ay CDG qabatay ama hay'adda Center for Democracy and Good Governance
in aan xisbiga wadani guddoomiyihiisu ka soo xaadirin balse xisbiga kaah iyo xisbiga kulmiye guddoomiyaashoodu ay ka soo xaadireen mowqifkoodina halkaa ka sheegeen caddeeyeen waxaanu bulshada u sheegaynaa arrinta doorashooyinka iyo diiwaangelinta ka horeeya inay masiiri tahay oo arrin aada iyo aada u muhiima tahay sida uu qorayo xeer number 191 xeerka doorashooyinka sidaa laajigeed ay suurtagal tahay culayska doontaha ku noqotay xukuumaddu inay miisaaniyadiina doonto commitmentna muujiso oo ay diyaar u noqoto in ay doorashadaasi waqtigeeda ku qabsoonto haddaba safarro badan oo qorshaysnayn baa xukuumaddu ay iska gashay waynu la soconnaa guddoomiyaha xisbiga wadani safarru iskaga maqnaa raggii uu kaga tegey maxaan ku cabdirashiid oo kale ee uu u xil saaray inuu kulanada axsaabta sii galana mowqifkiisii muu ahayn mowqif fadhiya waxa weeyaan option 1 bay taagnaayeen markii hore kulankii tusaale ahaan oo kale ka dhacay kulankii ugu dambeeyay ee casood ka dhacay aad baa loogu qaybsamay xisbiyadu waan xasuustaa ka hoo kale trigooday taagnaayeen qoladan wadani ama xisbiga wadanina option 1 buu taagnaa markii halkaa guddi farsamo lagu sameeyay si ay optionska ama mabaadiida loo mideeyo soo admaad garan meelaha la kala taagan yahay maadaama mabda'a guud ee doorashada laga midaysan yahay xisbiyada axsaabtu leeyihiin waanu aaminsanahay in xilligeeda dhacdo hase yeeshee haddana optionska ay kala taagnaa ay kala duwan yihiin guddi farsamo halkaa laga sameeyey guddidii farsame halkaa laga sameeyey waxaanu xasuusanaa oo bulshada u sheegaynaa in xisbiga kulmiye isagu markaa isagoo maslaxadda iyo danta ummadda Somaliland eegaya inaanu option 3 aanu markii hore taagnayn aanu ka tanaasulnay oo option 2 istaagnay annagoo u aragna option 3 in waqti siyaada ah uu maxaa ku qaadanayo uu ku kordhinayo kharashkiisuna fara badan yahay markaanu aragnay markaa dawladdii iyada lafteedii oo maxaa ku option 1 ku dhigto galgalanaysa option 2 baanu istaagnay si aanu bulshada u tusno mar walba inaanu anagu flexible u nahay danta bulshada iyo daneeyaasha doorashooyinka taa bedelkeeda xisbigii markaa ka asagoo halkiisii uu sii taagnaaday xisbigaas wadani isagu wuu nala qaatay qaadasho aan yacni ku fadhiyin go'aan adag markaa cabdirashiid oo ahaa ninka wakiilka waa markaa maadaama guddoomiyuhu maqnaa option 2 buu nala qaatay isaga iyo wasiir xuseen axmed caydiid iyo xubintii kale ee markaa wadani ka socotay ninka ibraahim la yidhaa markii ay nala qaateen xubnihii farsamo oo markaa kulankaygii ugu dambeeyey aanu sidaa kusoo gabagabaynay oo laba xisbi markaa ay dhinac isku mareen oo option 2 isku raaceen waa kulmiye oo annaga iyo wadani oo ka soo degay option 1 ayaa waxa aanu ku warranay subaxii markii Mansoor aan isku tagnay shirkii ugu dambeeyay guddoomiyaashana fadhiyeen aanu u sheegnay go'aankii task force member xubnihii farsamo markaa la diray ayaa qoladii wadani markaa waxay yiraahdeen annagu ikhtiyaarkii la isrugo u banaayahay option 2 waanu ka noqono option 1 baanu ku noqono taasoo runtii u muuqata yacni arrintii jiifyaana bannaan joojiyaana bannaan ka dhigan oo waxa weeye bulshada wadaadkii lagu yidhi lo-baa beer cuntay waranka intuu taagay hala buuxiyo hala markii la yidhi loodaadii bay ahayd yidhi haddii la jiifyana bannaan ayaanu u aragnaa inay bulshada dabaal joogto iyo daneeyaasha doorashooyinka ay la dheelayaan oo marna ay maxaan ku leeyihiin optionkaas aanu taaganno diyaar baanu nahay marna ay leeyihiin optionkaygii baanu ku noqonnay marka taas waxaanu leenahay iyaga ayaa ka galgalanaya oo ka meeraysanaya mar ay safarro u baxaan iyo mar ay optionkii ay taagnaayeen bedelaanba oo mowqifkii xisbiyada ay la qaateen axsaabta maxaan ku bedelaanba marka waxa weeye xisbiga kulmiye isagu mar walba bulshada wuxuu u sheegayaa arrinta doorashooyinka sidii xukuumadihiisii horeba ay committed-ka uga ahaayeen ama ay uga go'oneyd inay doorashooyinka qabtaan oo sidaynu la soconno xukuumadihii kulmiye iyaga ayaa markii deeqbixiyaashii ama qaadaan ururiyaashii markay meesha ka saareen kharashkii doorashooyinka in ka badan 75% xisbiga kulmiye wuxuu ku tashaday in doorashada ownershipkeeda ama lahaanshaha doorashada in waddankeena uu maxaa ku dhahay tuurta u rito taas ay ku qabteen doorashooyinkii waxaanu la soconnaa in doorashooyinku habsamiil ay u socon jireen waxaanu la soconnaa doorashooyinku inay waqtigooda ku dhici jireen wax haddii isbedel dhaco isbedel farsamaysan baa dhici jiray ama ku darsasho farsamaysan baa dhici jirtay waayo caqabadaha mar walba waxay ahayn xisbiyada mucaaradka ee waqtigaa joogay xilliyadii kulmiye oo tusaalahaan qodobkan imika aynu eedeynay in leeyahay dibdhaca doorashooyinka waxa kulmiye ka mas'uula waxa weeye kulmiye markii wakiiladana markaa madaxweynaha maanta joogay 15 sano de waxa lagu daray xilliga gacanyarihii xukuumaddii kulmiyana de wuxuu ahaa guddoomiyaha maanta ee xisbiga wadani buu ahaa
marka waxa weeye ayaga taana dee mas-uul ka ahaa haddii ay sheegeenba laakiin commitmentka xukuumaddii kulmiye ee ina soo maray waxay ahaayeen mid mar walba ay ka go-antay in doorashadoodu xilligeeda ku dhacdo haddaan intaa kaga tago bulshada waxaanu caddaynayaa imikana annagu aanu diyaar u nahay in aanu doorashada waktigeeda ay ku qabsooto ayaanu diyaar u nahay waxaan u soo jeedinaynaa madaxweynaha qaranka arrintaasi sidii madaxweynayaashii kaa horreeyey ay u dareemeen mas-uuliyadda doorashooyinku leeyihiin ee ownershipka iyo kharashka doorashooyinka iyagoon qaadhaan bixiyayaal u raadsanin ay iyagu u raadiyeen in asaguna uu qaato maxaan ku dhahday doorkaas oo kale uu qaato oo uu kharashkii doorashooyinka raadiyo kana go-naato sidii uu dhowr munaasabadoodba ka sheegay inuu ficil u bedelo oo ay ka go-naato in doorashadaasi ay waktigeeda ku qabsoonto axsaabta siyaasiga waxaan u soo jeedinaynaa inay u diyaar garoobaan mowqifkoodana mabdi'iyan way caddeeyeen inay jecel yihiin inay doorashadu dhacdo 11 May 2026 doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada balse waxaanu doonaynaa taa ficilkeeda inay la yimaadaan oo meeraysiga ay joojiyaan iyo ka maqnaanshaha waddanka dadkoodii arrinkeenka ahaa inay waddankii ka maqan yihiin taana inay joojiyaan baan u caddaynaynaa commissionka waxaan u soo jeedinaa jadwalkii inay soo saaraan doorashadii dadka u diyaariyaan soo bandhigaan oo ay jadwalkii dadka u soo bandhigaan iyo halkay wax u marayaan maadaama intii hore ay mashquulsanaayeen oo qurbaha ay ku maqnaayeen oo ay tababaryo wax u maqnaayeen maanta waxaynu leenahay aqoontii aad soo barateen iyo tababaradii dadku waxay ka sugayaan inaad u bedeshaan ficil oo jadwalkii doorashada aad maxaan ku dhahay sheegtaan task force memberska xisbiyada u fadhiyana ka shaqaysiisaan intaas ayaanu soo jeedinaynaa intaasaan kusoo koobaya shirka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu